عليكم السلام عليكم السلام. soo dhawaada maanta dhiiga igu kacsan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. wax yar baan ku jirayaa because kaygaan ku jira hadda oo ka soo baxay. dhiiga igu kacsan wax kalena uma soo gelin. awal hore waxaan soo gali jiray wanaag iyo waano. walaaladiin baan nahay, cali fiiciid baan nahay, ree cumarka balaayaan akhrin jiray. wixii oo dhan maanta way isku biyo dhigad. kaana videoga waad aragteen facebooka saa u dhex socda ee dadku isdhex wadaan. marka maanta dardaaran baan wadaa. dardaarankaan wadaa waxay tahay nin walba kii wanaag kuu sameeyana wanaag u samee, kii xumaan kuu sameeyana xumaan u samee. maanta dardaarankayga wuxuu yahay dulqaad waa dhammaaday. dadkayga gabooyow kaca baan leeyahay, iska celiya. naftu mar bay baxdaa. dulqaad intaa ka badan waan ka daanlay. laa ilaaha illallah maxamed rasuulullah. imise baanu ku jirna walaalihiin baan nahay, dad ashaadanayaan nahay, dad islaanaan nahay. walaal dee baryo waa laga daalaa macaane, walaashay macaan. baryadii waan ka daalay, haaka baan ka taagnahay. calan soomaaliyeed annagoo hoos joogna ma dadkiisaa loo galayaa? maya dulqaad waa dhammaaday. laa ilaaha illallah maxamed rasuulullah. halkay gabadhoodii saa u galeen, dadkeenina intay joogaan, wiilka aabihiis ama hooyadiis ama isagii intay ku nool yihiin, xaaladooda maxaad u malaynaysaa? gabadhoodii bay saa u galeen, dadka kale xaaladooda maxaad u malaynaysaa? gabooyow kaca, naftu mar bay baxdaa. waxaa la yidhi ninkayna warankaagu marin weedhaadu ha marto. waa inaad ka gilgilataan. waxaa dambe hala dhaafo. baryo iyo wanaag iyo dhul isdhigisa waxaa waa isku dhammaatay. maya annagu ma ogolin inaad dhulkana la dhigto, inaad sidana loo galo. waa waxaan diidnay. maanta laga bilaabo dadkayga gabooyo mar walba waxaan ku waaninayaa iska celiya. naftu mar bay baxdaaye. calafka ilaahay baa haya, wadka ilaahay baa haya. annagu calafkana ma samayno, wadkana dadka dila ma samayno. ilaahay baa labadaasba u qaas yihiin. ilaahay subxaana qaadira ayaa naftana bixiya, calafkana keena. annagu ma samayno. waxaan faraaya ku samaysana ma aha. ilaahay subxaana qaadir ah ayaa labadaaba ku shaqale. annagu bini aadan baana, addoomaan nahay. marka waxaan leeyahay gabooyow iska celiya intaad iska celin kartaa. naftu mar bay baxdaaye. wixii hore way isku dhammaaday. dhul la isdhigo. ani shalay markaan hadlayo dad baa ila yaabanaa. dad baa been u hayste. waxaa la beenaale nin dhinta iyo nin dheer buu markhaati gashadaa. lifaan ilii soo dhigo waad aragteen sidaa loo galay, say gabadhaa u salicsan tahay, say u rafaadsan tahay. marka waxaan leeyahay dadkayga gabooye, naftu mar bay baxdaaye. waa inaan kacnaa. waxa weeye wanaag dambe walaalihiin baan nahay iyo dhulka la isdhigayaa iyo waxaas oo dambe ha la ilooba, ha laga baxo warkaas oo dhan. walaal baan nahay iyo ilmaadeer baan nahay iyo isku soomaali baan nahay iyo isku maxay baan nahay. waxaas oo dhan ha laga baxo. inaan soomaalina waan is ognahay, inaan dad islaam nahay waan is ognahay, inaan dad ilaahay ka baqanaya oo ilaahay abuurtana waan is ognahay. alxamdulillahi rabbil caalamiin. wax naga dhiman ma jirto. waa inaan u dagaalamnaa magaceenna, dadnimadeenna, diinteenna. dadkani diinna nooma ogola, dhaqanna nooma ogola, soomaalinimona nooma ogola. laakiin gabdhahooga markii gaali iyo xabashi iyo faransiisi balay ay wadanayso, they are happy. kuwa intaasan ku intaa laaleeginood moodid inay kasoo baxeen kuwaaba ilaahay baa abuurtay. daamur aad moodaa xitaa wata. they don't see problem, they okay. marka annagu waan diidnay. wax dambe waa isku dhammaaday. dulqaad waa dhammaaday, samir waa dhammaaday. imse sano maanu samraynaa? walaalihiin baan nahay, kan baana ma dhulka maanu isdhigaynaa? may inaan dadka iska celino weeyaan. haddaanaan iska celin dad ma noqonayno. waxaan leeyahay dadka afrika jooga ee walaalahay, caaniya biyaha loo kala baxo. iska celiya. nafta mar bay baxday. adduun weynahana arkaaya. haddii laga hadlaa shalitoole markii daami la gubaayey, ubadka la gubaayey, ee wax walba lagu samaynayo, waxaan ima taagnaan lahayn. haddii gacmo jir baa wax lagu qabtay, haddaanu ka bannaan bixi lahayn oon adduunka tusi lahayn, maanta tani ma jirteen. marka dawladaha aqoonsan baa xitaa iloobi lahaa. dadkaa waxay yihiin marka la arko, because dad shiciba hoos jooga dadkii dilaya cidna ma qaabilayso. dad xun inay yihiin baa la arki lahaa.
marka xaleeya dadkay gabooya ha kacaan ha ka banaan baxaan waxana danaan ka banaan bixin oo naan isuruursan oo dadkayga saa loo galay soo banaan dhigin oo naan website-da bukjarada anaa ku daad cid wax noo qabanaysa malaha waa inaan ka dhiidhiirinaa naftu marbay baxdaa naftu marbay baxdaa ilaahay baan na abuurtay ilaahay baan adduunkana keenay wardameyninkana loo keenay ma ininkaana loo keenay inaad na guumaysataan oo na dishaan no dad ininkoo kalaan nahay col kaa badan iyo biyo kaa badanba way kaafiyaan ma inaan iga cabsan inaad moodaysaan adeer waa dhulka aad leediinaan iniiga fadhinade iyo intaad maaragtay magaaladiina gabooyo way kala baxbaxeen ma yara wax yar ma laha ee iyaga kala maaragtay kala fogfog kolba inta yareeda ini dhex joogtaad kala goodsataan marka waxaa leeyahay inta yare dhex joogtaay hadcisoobina iska celiya intaad iska celin kartaan dulqaad damba uu dhammaaday anaga walaalidiin baan nahay dad inila dhashaan nahay ani fiidiyowyada waan fiirsaday waan daawaday hal nina aad iiga xanaajiyey wuxuu yidhi haa gabooyuhda waa dad walaalada iyada haa dee soo hadlaayo dhiiggaa boqolka ku tegaya isagaaba qabyaaladaysta caadi oo uurka ka buka waxaa layidha waxaad uurka ku haysato afku kaa xada afkiibaa ka xadxaday uu isbar qabanayaa maahe markaa dulqaadki waa naga dhammaaday waa inaan kacnaa oonu maaragtay wax qabsanaa oo iska celinaa maxay nagu dhacay waa kuwa iyaguba banaan baxee markay wax dhacaane ee banaanada joogjoogsadaan ee dowladaha u sadaqa doontaan annaga waxa weeyaan waa inaan tusnaa sawiradeena waa inaan u banaan baxnaa waa inaan inaahna dadkii sida noo galaya waa dadka xitaa magacyadeeda waddanka ku yimaada waddankooga nabad ah dalkooga nabad ah oon dhib ka jirin bay qurbaha ku yimaadaan waa la diiday dulqaadda buu isku dhammaaday wax dambe oon u dulqaadanaynaa ma jirto maxaa aniga shalaytoole waad ila yaabanaydeen maanta runta ma aragteen marka dulqaada adeer uu isku dhammaaday alxamdulilah ilaahay adduunkana keenaa ma haddaa iskale awal hore hadday dadkaygu jiifeen maanta way kacayaan waxna way qabsanayaan waxaan leeyahay dadka gabooyow inta ilaahay nafta inigeliya waa inaad iska celisaan naagta inugu dayda iyo ninka inugu daya 4 gacmood iska hor yimid mid la dila allahu aclam laakiin naftu marbay baxdaa waa inaad midigtaan oo dhaxda xidhataan wixii qalad inugu dayana ku daya because ilmaha ciyaalka ah hadduu ilmaha ka adkaado uu shalay dilay maantuu dili berri buu dilay ilaa uu iska celiya maahe marka ayaanaan noqon ilmo la dilayo ilmo lagu joogsanayo waa inaan iska celinaa waa inaan iska dhicinaa hadday gabadh ciddooda hadday wiilkeennaa guursato inaan annagu aanan qalad ku lahayn calaf ay tahay uu wuxuu ilaahay qoran tahay oo la iska celiyo yaa loo dulqaaday inay reerkooga burburiyaan oy dadkooga burburiyaan oy gabadha dilaan ama wiilka dilaan yaa loo dulqaadanin dulqaaduu dhammaaday ilaahay baa na abuurtay wardaynukuna maydaan abuuran ilaahay baa na abuurtay adduunkana keenay diin nooma ogolidin dhaqan nooma ogolidin islaamnimo nooma ogolidin soomaalinimo nooma maxaan inigu qabnaa markaa bal noo sheega dhul nooma ogolidin dad iyo dalna nooma ogol bal maxaad noo ogashin annaga inaad dhamaysan maad noo ogashin miya waa la diiday waa la iska kiin celinayaa wixii hadda ka bilaama baktinimada gabooyo dhaafo iska celiya naftu marbay baxdaay iska celiya midda laba wiilka Soomaaliyeed jooga la inaade qootada iga dhaaf ama dadkeena wuxuu qabaan warka badan iga dhaaf kama helin sallallahu alayhi ana kaloon bilayna ana ka helin aqlaaqliya ku hadlaysa siyaasadda dad ku jirto maaha inaad dantaada fiirsato dadka dantiina meesha dadka lagu dilo waa meesha joogto meesha dadka lagu xasuuqo waa meesha joogto maxaa kugu dhacay maxaa dhiiga ka qaaday waa inaad itustaa raganimadaada inaadeer ilaahay baa ninka dhigay ma jirto dulqaad dambe gabadha iyo wiilkan aroos weyn oo loo dhigo oo dadkaas ku baktiyaan baba ani ku qaboobi kara wax kale oo ku qaboobi kara malaha hadal yaan waxbay nagu daalay waxogaa hargabna wuu yahayaa beejkaygaan ka soo hadlay kana kama sii hadli karo ilma isugaaya waana waxa weeyaan almost 6 ay tahay salaadii casar ay iga tagtay intaan meeshan ka hadlaayay marka ilaahayna ha noo dambi dhaafo waxaan leeyahay gabooyow kaca dhiiga igu kacay inigu wala kaco diida wax dambe iyo joogsi dambe iska celiya naftu marbay baxdaay aamin ya allah inuu ilaahay dhamaanteen isku keen qalbi xaaro dadkeena gabooyo insha allah ilaahay aan taa ka bariya hal diido guumaysi dambe ma jirto iyaga hadda xabashada guumaysan jirtan damaanayna guumaysan waanu diidnay dadkii 7-7kii la dagaalamayaan nahay dadkii garabkiina taagnaa waa nahay ma fahamtay marka inaad maanta anaga dib noogu soo noqotaan
dhaqankiina dhigayaanu arkaynaaye wixii hadda ka bilaabma waan diidnay waan iska kiin celinaynaa wallahi oo bilaa oo tala inaan la isku dul qaadanay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi